والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرحبو كاعو ودل إيه دبد بيدين كالسلام الساء مدر جبوتي وحا سلام يا عاق اسماعيل وحا سلام يا إتبغلل وحا سلام يا دولة دمان بان سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركيو بحر دادا إساقيو بقشديسان راديو ينبو كاعو هل لقد دقيستو وقايل دان وبدبادة قرن وديلوين ودعدوين جوكتا وصول نقنقضي siday ballantu ahayd caaq ismaaciil waxaan ku bilaabayaa gadiidshalladi cumar waa shahiid gacan ka xaqdaran baa dishay maleeshiyaadka uu magafay hogaanka u hayo ee booliska. waxaa falkaa foosha xun la yarkaa yar ee muwaadinka ah loogula kacay amba se uu ku mutaystay wax cadaalada wax garsoora oo xaggiina ka soo yeedhay ma hayno. qarankoo isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay u haraadanahay waa garsoor iyo cadaalad dhaba. gacan ku dhiglayaashii ood cadaaladda horgeyso wixiiba waad ka waaqsatay waad ka gaabsatay cadaalad darridaad u xaqlisay. annagana waxa waajib nagu ah inaan ku nidhaaho xal mahay sidee xilka wareeji caaq ismaaciil waa dabuubta qayaxan ee reer jabuuti kula horjoogaan eed adiguna isdiidsiinayso. ummadda reer jabuuti waxaan ka codsanayaa marka aad maqashaan gadiidshalladiyo cumar waa shahiid faataxada u maray in ilaahay naxariistiisii janno ka waraabiyo gacanka xaqdaran baa dishay. taa markaan ka gudbo waxaad naga haysataan fu'aad yuusuf cali liyatno fu'aad yuusuf cali duuliyaha ciidamada ciirka laba xidig leh fu'aad yuusuf cali ood ilaa haddada aan kula hadlayno bustaha aad u dhigtay gabood gardarro aad ugu dhigtay qabyaalad aan geed loogu gaban oo qayaxan aad kula kacday. waayo inanka aad adeerka u tahay ee wahiib baanahays wahiib mabuutu seesoseeko ayay isku dhaceen. kama aad raacin cadaalad kama aad raacin gar eexa aad u xaglisay ceebtaada maahe waa caadadaada dee nin qabiil xambaarsan oo qaran doonaya inuu beenu sheegaad noqotay. markaa fu'aad kula hayb maaha laakiin ummadda reer jabuutiyeed kitaabka baallaha u jartay buu ka soo jeedaa. haddii aad adigu wihiib xigsatay annaguna dhammaantayo qarankoo isku duubanina waa fu'aad. dee markaa waxaan ku leeyahay caaq ismaaciil qaran iyo qabiil isma qaadi kare meesha ka wiliili waad kashifan tahay waad fashilantay ceebtaadiina way soo baxday. taasaad doonaysaa maandaashanaad baan haddana idinku soo noqon adoo caruurihii yaryaraaye inankaaga iyo inamadaada ledda ah aad gabood gardarro ku dhigtay aad ugu xidhay ood u diidda weliba dadkooduna inay arkaan. adduunka lama aragoo lama maqal nin maxbuusa oo xidhan oo dadkiisa laga ilaaliyo adiga hortaa ma aysan dhicin. laakiin abeeso waxaa la yidhi dacawa halkay macal ugu baratay bay macaluul ugu dhimataa. tani waa taad ku hungoomaysay fu'aadna horuu fagaaraha kuu keenay inta hadhayna waa la dhammaystiri. laakiin waxaan kuu sheegayaa fu'aad innagaa gabood kala baxayna de taa ku talagal. wax kastood u maleegtaan iyo wax kastood isku daydaanna wuu dhicisoobaayo ilaahay baa de malaa'igta rabbi baa ilaashanaysa. bardanu salaama ayaan mar walbi leenahay waanan u ducaynaynaa in ilaahay addoonka iyo inta baadilka u xidhanba ilaahay quweeyo qalbiga u adkeeyo. idinkana ilaahay kuwii sida shamaca dhalaala allaha idinka dhigo. ilaan baadil baad xambaarsantihiin oo xaqdarro iyo qabiil iyo qurun baad dalka ku maamushaa. wixii way soo dhammaadeen waa lagu ogaaday dee ma garanayo waxaad isla mataxayse ceebtaadii baa iftay. horeyna waan kuugu sheegay maantana waan ku leeyahay waad ku hangoobiye ka fiirso inta aanaad fagaro odhan ayaa lagu wada leeyahay reer jabuuti dhammaan waxaan ku leenahay ka fiirso inta aanad fagaro odhan. way kuu feedho firin bay kuu geliso keligaabaad fulaysaa laakiin shicibkuu kugu oriyey maalin dhowo hirrow waa waxaan kuu sheegaynay baa lagu odhan. ku talagaltaanade weli ma aad ku talagelin adu mid baad meel dhigatay tii rabbina meel bay taallaa ku talagal fajicisaha ka qaadin berri markay ku hor timaado xaqiiqdu. ilaan waad meeraysanaysaa waadigan daamanka leexleexinaye sidii garaantii sidaa iskugu wareegaye markaa iska sii daa caruuraha yaryar ee masaakiinta ah ee garya magla'aanta aad u dhigtay gabood eed ninba nin u xidhayseed ninba nin u duleynayseed ninba nin cagta hoosteeda u gelinayso. taa markaan ka gudbo waxaad naga haysataa sarjan yuusuf maxamed cali gabase sarjanka jeerta ee kii maartay aad meesha ku haysateen abajahle indhaha qoyanaa kii kale marvin gay aad adeerka u ahayd tallaabo kii kale bendaac hooyo u sheeg ay waxaasi isku bahaysteen inankaa yaree miskiinka ah yuusuf maxamed cali gabase cidna waxba muu dhibin cidna waxba kumuu samayn kulli dulun baa lagu wada haystaa carruurtaa yaryar ee masaakiinta ah. wax allaaliya waxay dhimeen ma jirto waa askar baa loo roonyahay askarta waaba lagu durdurinayaay
waa kuwa askartii wadanku waa dhalintii dhaladka ahayd caruur yar yar oo wada aabba ah ayaa sidaa loo curdhun dhariyey oo sidaa loo wada galayaa oo qoorta lagaga wada joogaa oo laleeyahay ma hadli kartiin xaqiina kama hadli kartiin 2 bilood bilaa mushaar markuu ahaa siduu ku xalaalaysan karaa tole abaajahal ninkaad abaajahal tiriya indhaha qoyan leh siduu ku xalaalaysan karaa inankaa yar mushaharadiisa marvingeena ugu saxeexu yidhi laguma siinayo maxay ku dhacday taas maxay ku dhacday talaabo ha marvingey adaan kula hadlayaa yuusuf maxamed cali gabase 2 bilood halkay idin geysay hagee geysay ilaa imikana waad ka haysatiin markaasaa tiri waliba direyska waan ka dhignay direyska intaad doontiin unbaad saartiin wadanigoo dhan baad direyska ka dhigtaa ood ka xajiimootaa maxamed jaamacadu horey laguguma sheegin ma tallaabo magaalo joogxumada aad dhulka la suqlaynayso kala joogso caruurta wadanka kala joogso caruurtii waad ciisheene banaanka ayaa laynagu sugayaa bal waa idinkiiyo raganimadiin iyo waxaad kala heshaan raggani waa rag sidiine indhihiinoo shanana annagaa gabood kala baxayna marvingeeyo ku seexo kusoo toos ku talagalataa waxaa kalood naga haysataan mukhtaar maxamed axmed ood ka soo qaadateen goobacad isna waa sidaas oo kale waa askari cidan la ciduu wax u dhimay iyo cidan la ciduu wax ku sameeyey ma jirto waa kibir iyo kancaani waxa loo haysta caruurtaa yaryar waar sideed u taban kartaan sideed wax u sheegan kartaan sideed u odhan kartaan xaqayagiibaa maqan dad lagu haysto maanta horteed lama aragoo lama maqal caaq ismaaciil waad ismahadisay cirkaasaad isgeysay adiga mahayna cid kale ma talin kartaad istidhi ilaahay unbaa talada leh adu bashar baa tahay zamankaa hor yimiday baa yimiday waa lagu nacoo laguma rabo dee xageed sanka iskaga kaaya toli waan kaa dharagsannahay dal iyo dibad waa lagaa dharagsanyahy waxaa dalkiiyo dadka ku haysaane markaana dhaafo oo cirib bara kale nagu dhaafo caruuraha iyagana soo daaya waxaa kalood laga haysataa 2 inamood oo kale ismaaciil iyo maaragtay boofre cabdidille labadaana maxaa lagu haystaa war shaqa la-aan baa noo shaqadayadii badada waraaqalahayn la geeyey war ma yeelayna saankiya moodaa wadani baa noo xaq baanu leenay iyagana sidaasaa loo curdhudhaliyey oo loo ciilay oo sidaa loo geeyey gabood oo loogu tumanaya oo dhibaato loogu geysanaya dhalintii wadanka daba taasaan yeelnaa ma taasaan ka ogolaanaa ma taasaa maalintii alla keenaba caruurtayada in sidaa loo galo oo loogu tuntaan ogolaanayna dee ma ogolaanayna anagu waan qayliyaynaa waan cabaadaynaa waan ciilannahay waan ciishoonaynaa waxa aan la ciishoonaynaa iyo caradaan kuu qabnana caws la duubay ka weyn caaq ismaaciilow caradaan kuu qabno caws la duubay ka weyn waa dhalinta reer jabuuti dhammaan iyagoo isku duuban marka iska soo daaya caruuraha yaryar ee masaakiinta ah ee saaxiibal ciyaalka ee sidaa unu haysatiin ay ooriyahoogii ka wada qayliyayaan baraha bulshada ku leeyahay rag ayagii ma hayno meel la geeyay ma hayno waa sequestration disparition forcée idinku shuruuc iyo qawaaniin manin maxkamaddu waa maqaaxidaadii sidaa doontaad ka yeesha kaa doontaad xakuntaa kaa doontana waad dayrisaa kaa doontana xoolihiisa waad xaraashtaa xaraash iyo xoolo jaban baad ka dhigataa laakiin baroorta idinkaa ku dambayn xaqa ummadda aad ku durduranaysiin dalkii oo dhanna aad isa siiseen markaasaad weliba wixii dalka intaad isa siiseen goonni u leexsateen ood u yeelateen ood iminka dib u xaraashaysiin ood leedihiin halkaa annagaa lahayn halkaa kale annagaa lahayn si aan waxba laydinku soo gaadhin waa reer jabuutow dhagaha fura hantida dowladda dadka iibsanaya berri toole nalama ma odhan doontiin waa dadkan inoo yimiday ee maalgashiga u yimidaan la hadlaya siiba ummadda soomaaliyeed ee la baadi halaynayo ee laga iibinayo hantidii ummadda reer jabuuti ay doonayaan inay lacag cad qaataan reerkan harajaan fadhiya ee shalay wada xalaalaystay guryihii dowladda waxaan idiin sheegayaa maalqabeenka ummadda soomaaliyeed ee jabuuti soo maalgashaday oo ka fiirsada waxa laydiin gelinayo hoosta salaama bank baa u horeeya salaama bank sarta laga iibiyey waa sartii dowladda ka fiirsada waxay iyagu goonni u leeyihiin meeshan ma jirto waa hantidii ummaddaa layniga iibinayaa war hooy lacagtiina haysta war berrina nama odhan doontiin annaga haddada aan idinla hadlayo guryihii etaa barale loto baroclame kumbani kulalihi dayacan dalka iyo dadka u daran naftan saarayda sixirka sirmoodee su malhaadsan in habeen seexanaynay waxa xun ku fooganay colayay aqaladan aad iibinayso iyo hantidan aad doonayso inaad ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda maal gashanayso Djibouti ka iibiso waa hantidii ummadda reer Djibouti waa guriyihii dawladda waxaad gooni u lahayd ma jirto been dadka ha u sheegin anoo ku soo noqonaya shalay markaad Cabdalla Kaamil ka tagtay wadiga aqalkii aabaha ee Kartisayn ku noqday de haddaad xoolo leedahay mad markaa lagu arko caaqanaad ka sii tallaabsateed ka soo tallaabsatee xoolihii dalka ku xalaaleeyay laydinka yeeli maayo idinkana yeeli mayno
waanan idinka diidnay taana ma ogolaanayno waxa igu maqala bandaradii lamoet in la doonayo titrifonsiyeega in Tommy lagu qoro sidoo titrifonsiyeega Tommy u yeelan kara bandarada dhan ee lamoet ee dawladdu lahayd ee hantidii dawladda ah ee shaqaalaha dawladda kadarka sare ay gali jireen warwareeji buto baldaawada hadda baldaawada maalin dhaweed waxa la sheegay doomaanka inuu soo taltaabsaday benda uu yimid Cabdikariin aadan sheeru ka yiri ku qorde iyo waliba aqalka ku nabadna ugu dar aqalka ku nabadda dad baa loo galaa haye benda maxaad sheegay taasina ma beenba odadii Cabdikariin aadan sheer isku dhacdeen war ninkan aad wadataan ee xawiyo xoolaheedii idinka qabade waxaad leedihiin siiya xoolaha dalka sidee loogu xalaalaynu lamoet u yeelan kara reer Djibouti bandaradii dhanayde lamoet baa lagu leeyahay titrifonsiyeega ha lagu qoro Tommy xaguu nagala qaaday xoolahan goormuu yeeshaa de reer Djibouti waa idinka arkaya ma xishoonayaan waa wax manacooyin waa maxishoodooyin waa madhargooyin kuwani ciida culus marka ham lagu siiyo bay dhargi doonaan bal aqliga siya eta parallel october kalaame company kulali inay tiraa bandarada lamoet ku qoro Tommy xaguu ka keenay Tommy xagaysa ka dhaxashay inanteedu de caaq Ismaaciil attaqilla khaaf min rabbak ilaahay u toobad keen dalkan dad baale hantidan umad reer Djibouti oo gaajoonayso cawlana sadaqada baday baale dalka waxaan guryaha u iibinayaa baa tir in faqriga lagaga baxo faqriga idinka kaga baxayde idinka ku taajiro ku tadhahay shalay markaan calanka qaadanaynana waa la og yahay labadiinuba waxaad ahaydeen nolol waxaad ka ahaydeen waa la og yahay wariyaa dhiga xoolaha dadka xoolahan dad baale ummad baale reer Djibouti la yiraahdo ummadda masaakiinta ee Soomaaliyeed halaagaysana war hooy ka fiirsada war hooyna lama oran doontiin baritool ummadda Soomaaliyeed maal gashanaysa Djibouti ciday doonaan ka soo jeedaan attention reer geel arab wadiga xoolahoodii xaraashaya Ahmed Cisnaan geel arab wadiga jirida u gooyay xoolahiisii xaraashaya de xoolaha isagu haduu leeyahay aabihii buu ka dhaxlay haye adagiina geel arab buu ka dhaxlay ma xoolaha dadka saa u xaraashan ma ummadda saa sacabka iskugu dhufan arxishooda wax isku fala xishooda ilaan ma waantowdiina ma weynaatiine oo waxa xun kama kabacdaan oo kama kortaan waad ku talaabsataan waa wada makoorihi markaas doqonkii aad maaragtay adeerka wahaydna bendaac modavio baby boy intuu yimid ay Tommy ku qora qalad intuu soo yiri ilaan ma xishoonay wax iskuma falaye nagib Tommy titrifonsiye lamoet bandaral haysay tawadi ma waxarita dogombara kak waxariyana mango bas nagibow bendaacu kak waxariyana mango tolko kadhanu lamoet bandarala Tommy titrifonsiye ka haysay tawadi maninalge anke kabahe kay maykini inagray Djibouti waa yuntah maaluhay taw taarigan fadhinta duurini tabahteeti hay ko horisnaama wakaade doqonnimada aqliga siiyo kuleeya Tommy ku qora aqal bal waa ninka la doonayo reer Djibouti in la inaga idhaaho bari madax bay noo noqon ilaahay baan idinku dhaashay waa kaade waa sulduuq naq kaasa la doonaya dalkiya dadka inuu taliyo waxa san daawanaa de ma daawanayna na dhaafa Tommyna male bandarada lamoet waa patrimoine de l'État dawladda leh waa hantidii dawladda idin kama yeelayno ma ogolaanayno dadku galmaaho la wada guri maayo hantida dawladda taaka iyo meel walba naqaana haday plateau de serpent iyo haday aeron tahay iyo haday marabout tahay iyo haday maaragtay aviation tahay meel walba waan naqaana waan haynaa doosiyadii hantida dawladda hadaad idinku moodaysiin inaad kali u leedihiin laakiin la idin ka yeeli maayo ka yeeli mayno cukuro aan ka dhiga caaqow miciina laga fadhi hadii la nool yahay inantaadan wada sanqaraysa ee maaragtay xawiyo xoolaheeda Tommy doonayso inaad xoolaha Djibouti ku haysan maayo xafadoodii hala tago xafadoodii dundumooyinka badan yaaleen hala tago ninka madaxa dhiila ale duuduuga aad noo keentiyo faatuyada aad nagu soo jabiseen waa reer Djibouti fadhiga ka kaca waar hooy fadhiga ka kaca war ka kaca fadhiga waad arkaysiin dalkeenni sida loo qaybsaday ka kaca fadhiga qowleysatadana ay gabraaratadana isdhaafin ka kaca fadhiga fadhiino ma yaale dhulkaan dhacsan ka kaca fadhiga salayba way nagi gaalkii ka dhacsanay ma kuwan aanu daahayna wax allaaliyo waxay yihiin ma jirte khaatiliintan wada kriminaalada ee caruurihii wada cunay ee cid ay u roon yihiin aan la arkayn dalkiya dadka u daran ee maalka dadka doonaya balaayaana shaqo ku lahayn inay maalin walba ku sooraan
taamarkan ka gudbo maalmihii dhaweyd ee 17keedii lagu xadarmeynayay tiimbaadhiga dhalinyarada loogu dhigay istaad guuleed anu tiimbaadhi baan idhiye meeshii yarayd ee tiimbaadhigii 5 dhalinyaro ah ayaa la qaatay oo la xidhay waanaad arki doontiin raggii oo katiinadaysan ayuu cabdikariinka fadhiya komisariyaha komandaaga maarta baby dog ah waa baby dog ilan waayo aygi balaqoobu baby u yahay maaha waa baby dog baa intuu sawiradii qaaday ayuu computerkiisa ku sharaxday nacam dadku tusaya raggii oo katiinadaysan ayuu tusaya waan xidhnay komisariyagu ku xidhay inamadaasi waa 5 dhalinyaro ah oo tiri no osankie manda ayaa katiinadihii lagu xidhay markii katiinadihii lagu xidhay inamadiina wuxuu ku sameeyey sawiruu ka qaatay wuxuu dhigtay computerkiisa shaqaalihii radio bukaacana way soo heleen waad arki doontiin 5 cisho ayay katiinada ku xidhnaayeen gar iyo maglaan cabdikariinow ma lagugu cafinayaa taa raggani waa rag asaagaaya markaas aflagaada waliba wariya jahma garata tihiine maxaa waxaan idin galiya jahma garatada wadani maaha xaq uma leh jahma garatada ma idinka unba ma kuwa magafa la socdo unba iyo aygi balaqo ma idinka unba jahma garatadu ilaa wax ma nacdaan oo ma xishootaan oo kama weynaataan qurunka cabdikariin haddii xoolihii sidaaga lagu masaxay oo lagu basanbasay dee meel bay ku taalaay ku talaga lagugu dayn maaye commandamatiide waxaa tahay cabdikariin baby boy baa tahay komisariyagana adaa qurmiyey adiya magafa meesha aad raad dhigtaan maalin walba anagu waan ognahay maalintii alla keenaba waan ognahay waan idin daba taaganahay sawiradana reer Jabuuti waxaad ka arki doontiin shaashada raggii oo katiinadii lagu xidhay oo sawira laga qaatay oo waliba peeseyadooda dhigteen ay ku faanayaan nacan waan xidhnay no sankie moda sidaa baan u galaynaa daawada de no sankie moda bay raggaasi katiinad 5 cisho iyo 4 cisho ugu xidhnaayeen maxaa sababay xaq bay u leeyihiin de jahma garatadu waa wadani dhalada de way wada gaajoonayaan soo kuwa weeciya arta iyo shabeelle iyo meel walba daadsan xagee ku dhargeen jahma garatadu waxay cunaan bay leeyihiin sidii daayeerkay buuraha ka lushaane jahma garatada aad u diidayso inay xaqooda ka hadlaan jahma garatadu ma idinka warna dhaafa waxba dadka uma soo wadiin jahma garatana waxba uma tihiin cid aad og tihiin maloon calooshiina ahayn adiga magafe mala yacni nacam laha waa macmal aygi balaqo cabdilaahi bataraa cali caruur magafe nacamle macmal waxaasoo dhan isagaa leh annagaa leh hawa loo wada bixiye magaaladoo dhan baa u taqaana wixii xunba isagaa loo saddexeeye marka waxaan u sheegayaa ummadda reer Jabuuti sawiradana halkaas aad ka arki doontiin faan bayba gaadhay in dadka lagu durduriyo oo lagu faano oo lagu tunto sidii la doono laga yeelo oo katiinad intuu ku xidhay biri daawada inamadii peeseegiisu dhex gashaday de peeseegiisana anaguna ka helnay xarfada waa naqaana anaguna de haye ka waran cabdikariin waana soo dhigaynaa waxa dhacday tacsiba dhacday bisha 23keedii arbacadii bisha 12aad 2020ka agsidaan baa waxa ka dhacay casaamo iyo cali sabiix dhexdeeda wadada isku xidhiidhisa waxa xagga ku geeriyooday 3 dhalinyaro ah qaar kalena waa dhaawac horta intii dhimatay Allah ha u naxariisto samiriye imaan saadaqa Allah inaga wada siiyo dhalinyaradaas reer cali sabiix asajoog waxaan leeyahay Allah ha u naxariisto dhalinteena ilaahay naxariistoodii janna Allah ka waraabiyo dhammaanteena samiriye imaan saadaqa Allah inaga wada siiyo inta dhaawacana ilaahay waxaan uga baryayaa caafimaad sareecana ilaahay ha u malmaliyo waxa igu maqala in xitaa la diiday in tacsi la dhigo oo dadkaas maaragtay ay tacsidooda la dhigo uu diiday ninka la yiraaho danaysta brothers Ilyas Dawaale hawshana isagu gacanta ku hayay oo dhalinta casaamo u sii waday uu ku magac doonanayay dhalintiina xaqiiba halka ugu yimiday danaysta brothers maxaad ku keentay inaad tiraaho tacsi lama dhigayo ay sheegi kartaa maxaa sababay 12 barkii baa loo sii socday casaamo oo doonaysa halka in laga baroordiyo qayadana Soomaa wax kale uma socotaane caruuraha yaryar ee masaakiinta ee halka ku nafwaayay ee reer cali sabiix ay ka soo kala jeeda xaafadaha Iljaniya Sheel 3 dhalinyarada ee dhimatay Allah u naxariistoodii janna Allah ka waraabiyo eheladoodii iyo waalidadoodii iyo qaraabadoodii iyo qarankood dhammaan samiriyay ma saadaqa Allah inaga siiyo dee dhalinyaradaasi ololihiinii ayaa sabab u noqday
raadcadka iyo foolxumada aad dhulka la wareegaysa danaysta baraadaris in badan baad limaadhsanaydood dhuumatay maxaa ku soo kiciyey maxaad carruurta u galaafan maxaad been kaale ee u durmaantumada la haysaan ood carruuraha iyaga masaakiinta ah ugu dibira dhacsanaysaan ood intaad kolba gaadhi u kiraysaan aad carruurta naga mijaxaabinaysaan ood naga leeleelinaysaan waxba uma tirtiin waxna ma siisiin shaqana ma siisiin waad ku awrkacsataana wax alla waxaad u qabanaysaan dhalintaa yaree reer Jabuuti masaakiintii ma jirto marka mashaqada halkaa ka dhacday ee reer Cali Sabiix ku dhacday aksidaanka waxaan leenahay mar walba Allah u naxariisto dhalintayadii waxaan u sheegayaa umada reer Cali Sabiix war waxay nimatalaya maaha kuwani danaysta brothers baa leeyahay waa danaystayaal duunigooda iyo jeebkooda wax ku dhaca maahin aan reer Cali Sabiix ba shaqo kuma lahayn nin walba isagoo inta leeg bi noo yimid ay nooma naxayada shaqaynagu male kii ku naxariyo waa la garda duuba Shomer baa laga dhigo waa laga ilaaliyay saaxada Cali Sabiix u dhashay dalkan iyo dadkan kala garanayay dee waxa la inoo keenay danaysta brothers iyo wax lamida oo la leeyahay dalka iyo dadka sida doontaan ka yeesha anaga idin xalaalaynay de marka reer Cali Sabiixow aan fadhiga ka kacno on xaqeena u kacno dhalinteena dhexda intaan iswada qabsano aan wax heeriyada iska kor qaadno hooyooyinka iyo aabayaasha halka caruurtoodii ku waayeen sabir iyo saadaqa Allah inaga siiyaan leeyahay ilaa iyaga wiilna kaga dhiman maayo gabadhina kaga dhiman mayso kuwoodii meel bay dhigteen kuwa iyaga masaakiinta bay ku durdurinayaan ay doonayaan kadarta inay ku dhaafaan marka waxaan idin sheegayaa reer Jabuuti ha ka yeelina hana ka ogolaanina isdhaafiya waxa ilaahay baa inii maqan cidna inii ma maqan ceelna inii ma qolna reer Cali ceelna idin ma qodna reer Cali Sabiixo waad arkaysi waxa dalka iyo dadka ka dhacaya waa taalaynii diiday sharaac yar in la xiro taasi waa la arkiyo waa la ogaanday waan ognahay wax walba dalka ka dhacaba ilaa baabuurkii waa soo dhigayna aksidaanka marka hal la xishoodo dadka hal la daayo caruurta yar yar sida saaradiinka baabuurka laga buuxiyay de waxaas inay dhacayaan miyaan ogeyn danaysta brothers adigu hadaad baabuur sida diyaaradda u duulay raacday iyo walaalka marka caruurta masaakiinta ee halaagaysaan noo daaya caruurta kolkii horeba gaajaad ku xakunteen gaaje ku xakunaayeen Shomer bay wada ahaayeen dhalinta reer Jabuuti waxaan idin leeyahay yaa la idin galaafanin sumbay la wareegayaan sumalhaad bay sidaan iska ilaaliyo ha raacina ha agmarina kuwani waa danaystayaal dalka iyo dadka midna uma naxayaan aaqa wata waxba inooma aha inaga marka danaysta brothers dhigaasi adu dushaada yaala magtiina adaa lagaaga fadhiya de baabuurka rogmaday haduu asraas leeyahay hadii kale adaa lagaaga fadhiya magtii masaakiinta de ilaa adaa soo hindha dhiray oo ugu yimid Cali Sabiix marka maxaad u sheegan de masaakiinteedu guran caruurahooga kuwiini meel baa dhigateen maaha marka noo daaya caruurta masaakiinta danaysta brothers yaa gare joogso waad ka badbadiseen dhamaantiinba waad ka badbadiseen laakiin baashashkiina iyo faylalkiina waan soo celinaynaa wiilkan baa ku soo noqda saaxada 4 cisho dadka ka xirooteen waa la iska kiin qaban waa la idin kula xisaabtan waligiinba xoolaha fogeeyo hal goor iyo Itoobiya geeyo xoolihii Itoobiya sootan la isku haysto waa nafsigii reer Jabuuti waxa isku diray Itoobiya xoolihii umada reer Jabuuti la weeciyay waa la iska kiin qaban ha dheeraatay ha dhawaato marka waxaan reer Jabuuti u naxayno dambe amba aan u diirnahayn amba aan kamid ahayn anagu talama weydiinayno talana kama go'do dadkii dhaladka ahaa ee reer Cali Sabiix waa la iswada yaqaanaa marka yaa la idin ku kaba dhowranine ha ka yeelina qurunka ay la socdaan caruurteeniina Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah inoo bogsiyo dhammaan reer Cali Sabiix oo fadhiga ka kaca isla marka Cali Sabiix baan ku jiraa waxa dhacday jimcihii bisha 18keedii December bishan aan ku jirno 2020ka salaadii jimci kadib waxa dhacday ninkii maaragtay ministerkii caafimaadka la yiraaho Maxamed Warsame Hurdaaye ayaa nin miskiin sadaqad weydiistay ninkii miskiinkii markii sadaqadii weydiistay ayaa waxa dhacday askarigii la socday gardakoorka ninkii intuu sare u qaaday inuu dhulka madaxa ugu dhufto waxaad ka arki doontiin fiidiyoga ninkii lagu urursan yahay miskiidka hortiisa Maxamed Warsamo haduu nin miskiin gacanta ku soo taagu ku yiri walaal wax si ceeb ma aha hadaad haysana waad siin hadaad hayna ma bahaysid maxaa sababay in askariga aad ku ilaalinaya ninka inuu gacan u la tago dhulka ku dhufto oo adaguna hartoobkii Greega aha ku dhaqaaqdo oo dib u soo eegi weydo ninka dhiig baa ka dhacay waa miskiin dhamaanteen ba miskiin Ilaahay baan nahay laakiin idinku waad kibirteen oo waad ismahadiseen
maxamed warsame maxooliya jiirka ku noqotay jirqaagad ku lacagaysatay ee reer Djibouti ya hurdaaye adaan kula hadlaya wasaaradda caafimaadkuna way qurunto waa loog yahay de wasiirka caafimaadka tahay mad dhakhtarka cali sabixi geysidood dawaysidood ninka baanatid hadaad ilaahay ka baqayso mise miskiinka unbaa miska la fuulalo sidii la doono laga yeelaa taasina de cali sabix bay ka dhacday caaq ismaaciil haddii lagu sheegay agsidaagu cali sabix buu ka dhacay reer cali sabix mashaqada iyo foolxumada unbaad ula tagtiina wax gallad iyo wanaagood u geysiini ma jirto dadka masaakiinta ah ninka miskiinka ah ee miskiidka hortiisa sadaqada jimcaha ku weydiistay de waad siin lahayd waad haysaa xoolihii ummadda reer Djibouti weliba askarigaagu gacan ula tagay inaad ka hadal ilaa imika waan ku sugayaanu 18 ilaa maanta bal inuu ninkii lala soo hadlo dib loo soo eego waxba dhawaaq idinkaba maqal maxaa keenay maxamed warsame hurdaaye xoolaha dhakhtarkeed xalaashateed sidaa doonayso kolba tirkiga ugu noqonayso kolba guriga ka soo iibsanayso adeer meel walbood guri ka iibsatiin annagu waan idin daba taaganahay ninka miskiinka ah ee askarigaagu dilayna aduu kaa weeran yahay haylan miskiinka waad ka adagtihiin oo waad ku tumatihiin kolla mushaharooyinkaad u diidiin kolla waad leysiin kaa miskiinka dariiqa joogay sadaqadaysanayana faduushu way kuu geysiiya dharag iyo kibirku soo maaha dee caaqu waxaasuu ku istiraexayn masaakiinta la laayo de waanaad arki doontaa videoga ninkii oo lagu xunsanaya miskiidka hortiisa waanaad baxsato hartoobkaagii baad ku baxsatay talabaada ambilaasyadaada baabuurada ambilaasyada ah ee maaragtay gobolada joogiyo dhulka fogfog jaad baa lagu guraa taa miyaad war u haysaa waad og tahay waa la ii sheegay inaad shirka kula tahay adduunka casriga tagay si ambilaasyada loola socdo GPS iyo maad samaysatid lacagta lagu samaynayaad ka doorbidaysaa waxba kaama gelin ambilaaska intaasoo milyan la soo siiyey jajabaya kolba buur iyo bannaan jaad loogala dhacayo ee markay dadkii bukaanna loo waayayo in la soo qaado dadkii masaakiinta ah ila meel daran buu ku maqaya wax kontroolaya wax ka daba socday wax ka daba shaqaynaya midna ma jirtay shaqadaadii waad ku fashilantay dee caaquna uu fashilaya nin fashilan waxba kama qaadade haya caaq ismaaciil waran nin fashilan waxba kama qaado waad wada fashilantihiin dowladdaadu say u dhantay caaq ismaaciil mise waxaabaaba ka socdee waxaasaan ka hadlayna aan kuu sheegaynan dhagahaaga soo gaadhsiinayno dowladdaaday ka socdaan iyo foolxumada dalka taalla marka maxaa dalkiiyo dadka ugu filantay caaq ismaaciil inaad iska socoto mayna waajib ahayn waxa aad noogu soo noqonayso galladoon arkaynaa ma jirto oon baaba iyo basanbaas ahayni marka inaad iska socoto aday kuu dan tahay maad iska socotid maxaad isla matixiya shaarka la gaabsan meeshan cid ku rabtaaba ma jirtee cid ku rabtaa meeshani ma jirtee maad iska socotid oodna dhaaftid annagu waan kaa maaranay haddee toolisaad nooga maarantay yaan annaguna kaaga maaranay oon fooqsale kaaga fuurnay waanan ku tusnay inaanaan ku rabin laakiin ku quusan maysid oo ku qargoosan maysid ilan kii unbaa tahay in yaroo yar haddaad damiir leedahay dalka waxaa ka dhacaya ma aad tiraaheen mar labaad mar shanaad baan ku soo noqon haykalkii dowladnimo meesha way ka baxday haykalkii dowladnimo meesha way ka baxday waanad og tahay kala dambayntii iyo shuruucdii way ka baxday waanad og tahay bob nin walba jeebka buuxso meesha waa lagu kala cararayaa baad isleedihiin laakiin ilaahay ma odhana idinkaa laydin qaqabanay ka waran idinka doonaya inaad xoolaha dalka la carartaan baa laydin qaqaban oo shabaglaha laydinku guri haddii ammaanada la hayo marka maxamed warsame hurdaaye waxaasaa kuu yaalla de cali sabiix kulligiinoo dhan waxa dadka waxaa ku samaynaya oo dhan nin cali sabiix ku dhashay ma waa wixii shalay iyagoo hangaraaracaya noogu yimiday ninka dhulka ku dhashay inunbu dadka u diirnaxa u damqadaa qaar badan oon ku dhalanoo damiir iyo dadnimaloo damqanayaa jira laakiin kuwani waa dullide dowladdanina dulligiiyo wixii xun bay urursataa war annaguba qurbaha waan joognaa laakiin waan damiir iyo dadnimaan leenoo ninkooga tacbaanka ninkoo dariiqa jiifa kuma digan karayno waayo dee dhulka aad ku nooshay waa dhulkaagii oo kale un marka kuwani dhulka waxay ugu nool yihiin si ay uga danaystaan ee uga xoolo qabsadaan uguma noola si ay dhulkoogii oo kale tahay marka waxaan ma aragtiin xunshada meeshan iskugu timid dee heeryadooda aan iska qaadna reer Jabuuti ciday u naxayaan ninka miskiidka hortiisa lagu dilay war waxisi ku dilay makaasaa galad leh oon sugnaa reer Jabuuti dee waad kibirtay maasheedow shalay maaha markaad qaxootiga xeradeeda ku jirtay maama markaad xerada cali sabiixi qaxootiga ku jirtay waqtigeedii baa la soo dhaafo miskiinkaad ku tumanaysaa reer Jabuuti ee sadaqadaysanaya dee miskiinka annaga ale inta ilaahay ka sogaysu naga mid yahay oo ku dareensiinayna inaan u damqanayno oon u diirnaxayno taana ku tirso ku talagal taana waa lagugula xisaabtamayaa ambilaasyadaadan jaadka dilaalka ka ah eed raalliga uga tahayna
ee dadku markay bukaan la waayayo meel ay jaan dhigaan ay ninkii wadaya iyagaba la laayahay nimaad wax ka qabatid dhakhtarkan bilaadawada amaad wax ka qabatid xoolahan aad guranaysiin mooyaane waa wada waxa waa kali waa waxa uun adarkaysiin xunshada ah ee dalkiiyo dadkii lagu sii daayay ee wax ka qabtana aanaan haynoon ilaahay ahayn ilaahay baan ka magansanay kuwan cirka ma gaadhnay dhulkaan cuskanay waxaan iminkana idin dhegaysiinaya dallin yaryar oo reer kartoona kaartiyaseed biis oo iyaguna hadlay oo doonaya in codkooga la maqlo bal iyagana ila dhagaysta waa kuwane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطانا دليل سيرة كرتون شربان فريسنا شيف يودي كسو باي ولكن اسمان حسن داير بانوشية بديسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة كسو جديد أنا عني وعافينا كي دليل كرتون كرتون شربيني كقب صامي حافظة كرتون هرهان أنت إذا دليلتا سيلو أوهي هيبة dowladda dalka shacabweynuhu waxaa loo ololeynayaa oo baroordiiqo badan maamusyo badan xeesiyo badan loo qaaday si dib mudanaha madaxweynaha loogu xili saaro oo loo caleemo saaro haddaba caleemo saarkaas dad badan baa wax ka qaba anaguna waxaan nahay dhalinyartii waddankoo wax ka sheegana caleemo saarkaas in badan bay xukuumadda waddanku ka dhisan shirar badan iyo waxyaalo badanba u geysatay dhalinyarta laakiin maanta waxaa xaggan isweydiinta mudan leh dibu codaystan sake mondado etel compatible على volonté de la jeunesse ma wax u qalmaaba dhalinyarta mise waa wax aan u qalmin dhalinyarta raali may ka tahay mise kamaa waxaa loo joogay maalintii dowladda khamiistii baroordiiqii ka dhacay xarkubada weyne islaam xasan wule inay dhalinyaro badan joogeen qaar kamid iskoolada laga soo kaxay qaar kamid xaafadaha laga kaxay qaar reer kartoonaba ku jiraan haddaba waxaan ana ku baahannahay wax kale maaha arrin inaan u gudbino madaxweynaha dalka mudana madaxweyne intaanaad ku dhawaaqin doorashadaada ama dadku kugu soo caleema saaranba waxaad tireedahay 5,000 oo qof iyo wax ka badanba dowladda waa la qaadayaa qaabka loo marayana waa ministère de travail bureau de chômeur and fica haddaba waxaanu ka codsanaynaa inaad inspection d'état dib ugu jirtido dib loo inspectiyo qaabkii u socoto qaab aqalgala maaha marka waxay la sheegayaa qurux badan wuxuu aqligu sheegayana waa wax fiican manhaga waddanku ku socdo cid walba cid baa leadership waa oo geed supreme waa maanta dalka Djibouti ilaahay adu kaaga dhigay manhagay haddaba manhagana ku socono muhiimaddu maaha inaad socotid ama aad joogtid anaka haddii aad socotid iyo haddii aad joogtidba taas waa arrin siyaasadeed oo c'est pas la tête qui compte c'est le système qui compte qofku inuu kow ama labo ama saddex u joogi kara oo wax dhibaato ah ma leh laakiin waxaa dhibaatadu tahay qaabka loo shaqeynaya qaabkan waa u shaqeynaysa mudana ismaaciil dhalinyarteedii anaka mu qancinaya waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa la jeunesse c'est le capital demain la jeunesse c'est le capital humain de demain haddaba مجهام اللي وضعت هذا اليوم اللي حد نوقف اللي بنحن نوقف شيء على كلمة نوقف شيء على مثلا أنا جربت على خليه عمرك كمباني سود وسين أصلا خليه يراعي مش بيجين الناس طبعا بس يمشي عليه المنهج من الموضوع هي قسم تمام حتى بمثال في نص الجميل في كان يجونا waxaanu arsano waxaanu arsano oo aqligeedu qiimeeyo waxaanu naga soo baxayna marnaba ma aha ayaanu yaa weyn wax u qalmo waxa ka codsanaa dowladda Djibouti waa madaxweyne shariicaha iyo Ismaaciil Mirgil in dib wax loo eego sida mas'aalaha soo socda waa ma yaqasam mas'aalaha dib isku fiirsada dib isku noqdo dadka xaqiiqo ku maqan tahay
أنا أفين فانتوما هي مستقبل بشوية حياة بدل ما نلاش شيء جاري لكن دي واحد الديني المغلوط أصلا كارن صار قرت يجيب على سنة أولم دي كشتون دي جنس كشتون d'emploi كشتون de financement تنهي تريد يكون كتوفى في المنطقة الديالوجية كما تقدير الوقريات كما تقدير الوقريات أنا أقول لكن ده يخرج في قلبي والمصاف وأنا الله ولا قرنا يا عدوى البنات ولا شو اللي قناع أبو كوريا ولا أنا مجالنا وانت كم بعد من كوريا ولا أنا يعني هتبقى في قسمه إنديزي وحدانا وانت تساق مانا وحاول إني كديا يقطع عليه وزارد الرقرانتو أصيح الوكيل أي فنك الوكيل زي المسؤولة هذا وضع كوطع هذا إن waxaan ka qasanaynaa dowladda lagu soo jeesto hadalkayna joogsan maayo ilaa aan jawaab sax iyo caqligala ka helano wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadiga maqlaya waa dhalintii reer kaarteysad kartiile waxay ku yidhaaheen intaana dadka hor iman ballamihii aad qaadeen shan kun oo qof baan shaqo qorayaa iyo beentii iyo maaragtay hawaasnimadii waxba kama shaqaynayaan maxaad noogu tala gashay buu yidhi annaga ciidan iyo calankan maxaana loogu talagalay dhalintii waddankaan nahay dee su-aalaha aday ku yaalaan caaq ismaaciil waa ninkaysi soo mataxaya maandaa shanaad baan doonayaa lahow waa dhalintii carruurtii waa 20 jir ninka hadlaya reer kaarteysad kartiile weeyaan xaq buuna ka hadlay waajib buuna u leeyahay inuu mustaqbalkiisu halka uu marayo arko waayo mustaqbalkiisiyo madow buu u jeedaa oo baaba ah waa 20 jir maanta uu cusub yahay dalka inuu wax qabsado inuu maartay wax samaysto wixiiba waad ka hor joogsato adiga toomi u xalaaleeyay di xoolihii dalka marka carruurta yar xaq bay u leeyihiin inay kula xisaabtamaan day ku yiraahdeen maxaad noogu tala gashay annagu rakacay baan nahay adaana kugu garaadaysana waxna nooma soo wadide waa xaqde waana run kilmatal xaq walaw kaamur maxaad ugu tala gashay gidaaru baa fadhinaa buu ku yiri nolol baan u baahanaa mustaqbal baan u baahanaa maxaa ballana wax la hubin ma haysaayo maskuukin halaynaa weeyaan sheekadu de waa maya wax la hubo ma haysido la isku ka halayo waxa kaliya la hubo waa hantidii dalkiyo dadkooda intaada u wada xalaalaysay taana de kaama yeelayno haddana dhageyso dhalintii arxiba iyaguna waa kuwane iyagana waa dhageysan iyagoo kula hadlaya oo ku sheegaya siday wax u jiraan أما أدوه شبوت سلامة دين تبارو يانا تاني مينا سلام بارو دال حلول كتان سبت سلامة كاهي بيجي ما أصلا كنورو بكرة دينا ملا إترونجي نجادا تري عدوي نجادا تري ما حلول دينا نسبت بارو سلامة كاهي ما هو كذا كانوا يرجلي بروبلم ما من نحكي وينام من نحكي ما فعلكم اسماعيلكم ادورنو اسماعيلكم ادورنو waadiga maqlay dhalintii arxibaana kuma doonaynay ku yiraahdo sankiya monda annagu buu ku yiri magaaladu waa ammaan waa nabad baad leedahay ammaankiyo nabadda annaga ahayna buu yiri raga joonayaan nahay laakiin annagu inaan dalka yaga intaan ku gaajoono dushayada waa ammaan iyo nabad tiraah ma problemku adiga haduuna ahayn hadaa waayo buu ku yiri deeynaan ka yara carruurtii waa carruurtii yaryarayd ee reer arxiba dadkaasi waa wada reer Jabuuti hadda baroor diiqdi ka kaalaya iyo filinkii aad matalayseen iyo musalsalkii iyo tiimbaadhiga aad ku dhigateen xero kubad hooyooyinkiina hadda ku maqashiinaya dhaladka ahaa ee reer Jabuuti iyaguna kula hadlaya dhageyso waa kuwane السلام عليكم أنا هويوي إسماعيل عمر كفاية حدد واندن نو سنك موضع استدعنا رمنا كما قالينا وكاوينا موينا سسا ما تفعلنا يا شغالين صور قصب صير عيال سكول قدر شغالة حد ما تليسين هذا يصبح ويدين أصدقنا بس جيرا وجلسين إلى ديار السؤال كي إسفاق وكل ربطات قصب كسواك عيسي ذاتكم مصر بحسين وأقر ويقولستين ورنتوده ويقولستين وحي كقولستين حقيقي بي أركان ده وحيسي وحجرين بي أركان عاق إسماعيل marka dadka miyaadka ku tumani waa hooyooyinkii dhaladka ahaa ee reer Jabuuti dulmidiidka ahaa
waa hooyadii dulmidiidkayd waa dhalintii dhaladka ahayd ee reer Jabuuti ku diidanayda noo sankiya mandaa ku tira reer Jabuuti cid walba ka soo jeedeen de dhagahaagu laabta uma daloolaan laydhay u daloolaan iyo filimka lagu matalayo tiimbaadhiyada wixiina waa la diiday waa la diiday lagumana rabo marka maxaad isla mataxaysaa isla qasbaysaa ummadani way kacday waa la kacay intaas u yar wax ka waaweyna dhagahaagaad ku maqleen dhahaagana waad ku arki haddaad moodayso reer Jabuuti dadaan damqanayno damiir lahayn oo guryaha uu ka dhaxooyay hadeed waa laga baxay guriyooygii waa laga baxay waligaaba qori caaradii ku hay waligaaba askar ku meeri waligaaba argagixiso ku hayso adeer waa laga baxay taa annagu hadeed oodaan jabsanay dalka yagana waan u kacaynaa kana yeeli mayno taa markaan ka gudbo arbacadii bisha 23keedii bisha 12aad 2022 iyo barkii waxaad hormartay kaarteysiis booyada horteeda haday dhageyso caaq Ismaaciilo markaad booyada hormartay kaarteysiis waxaad aragtay godkii ay qolyahan maartay asanismoogu isagoo furan ay ka tageen mar hore soo dhignay ishaad si fiican ula raacday saasaad u agmartay maxaad u qabatay dadkii maxaa loo qabtay halka cudur baa ka dhashay qarmuun baa ka dhashay uskag baa ka dhashay marka horeba maxay uga dabooli waayeen shicib weynaha reer Jabuuti ee kaarteysiis degan adiguna indhahaagaad ku saartay fiidiyoogii baad qaadi kari weyday waa tagtay waad hormartay arbacadii bisha 23keedii bisha 12aad 2022 iyo barkii duhurnimo ayaad kaarteysiis booyada hormartay indhahaagaad ku aragtay de waad aragtay maxaad ka qaban miyaad leefi maxaad samayn kartaa waxa ma samayn kartid wax allaaliyo waxaad samayn karaysaa haba yaraatee ma jirto de nin la haystaa tahay niman taladiisu meel gaarayn baa tahay nin dhawaaqiisu isaga uu ku soo noqonayo isaga uu isdhageysanayo wax allaaliyo wuxuu maqlayo wax ka hoos qaadayaan jirin de hoostaadii baa laga kaco taladii ee parallel bay ku ururtay adigana geed baa lagu xiray de taabaan yeelanaa anagu ogolaanayna ma colay cabaade de anagu waxba kama qorno kana qori mayno reer Jabuuti ma colay cabaade ayaan isku dhiibaynaa taa ma xaq maaha de kuwa googaradeeda raacay waa kuwanoo miidhada waa magafoon idin dhageysiinayo leh anigu yurub qale kuma lihi in isagoo layla dhageysta colay cabaade qolyaha ku xidhan magafa u horeeya aygi balaqo nacamlahan maaragtay iska nacamlaynaya macmalka ah waa nacamle iska hadlaa isagoo loog yahay inuu Faransiiska aqal ku leeyahay Courbevoie isagoo loog yahay inuu Canada aqal ku leeyahay isagoo meel walba maal gashado loog yahay buu doonayaa inuu dadka ka dhaadhiciyo been waa kale dhageysta isagoo malac halka hor kale balile dhageysta waxbaan dabadayga meelin dadka badqaday furtin bay ku leeyihiin aqwaada sinasina ma yaano dasanteedo warqadaha Faransiiska kuma cashaqsan mid kale ma rabo waa runta Faransiiska kuma caashaqsanidin adiguna ma rabtid Fosse Valérie ma rabto Fosse Valérie way rabtaa soo tan Courbevoie fadhida ee kaarka haysata carte de séjour ka haysata soo kuwa ciyaalkaagu Faransiiska fadhiya carte de séjour ka haysta anigu ma maal gashin maxaad u oran beenta ku fali aygi balaqo hello haye waran xoolaha aad keentay xageed ka keentay dhaxala bamaad lahayn dhaqashana kamaad lahayn xoolaha umada ma waxa aqalada 500 euro lagu siisanayo halkeedee wala soo sawir wala lagu tusi videogana waad ka arki anigu dibadda waxba shaqo ku baliya ma maal gashanayaad ku leedahay waad maal gashatay waad dhigatay wixii aad tabacdeed xoolahan ka xaday dalkana halkaas aad wada geysay markaas aad leedahay anigu ma raba warqada dibadda iyo ma raba maxay islaantaa soo tan guriga galab carro ugu digtay ilaa aabaha ii soo helta kugu haysay anaga been sheegaynay de waad ogta adigu Saudiga markuu madaxu ku wareero diyaarad ku soo dhaca ee inta soo kharash yimaadeen Jarmalka iska daweeya marka Jarmalku Jabuuti ka bid yahay aygi balaqo maxalal nacamle mala yani wax walo xunba adiga inka waa maxalal mala yani nacamle wax walba sanbal xumadu baaday ka bilaabantaa marka sa doonaysa inaad dadka been u sheegto od ka dhaadhicisay waxaan jirin war waa lagu qabtay beentii baar kalena waa darkii doontiina ku yaala guudka oo ka soo horjeedka maartay salaama baanka waxa la yiraahaa waa baar waxa la yiraahdaa baarka Casanova askar baa ilaalisa garayaro cad buu dusha uga xidhaa hoostana surwaalkii waxay ka sitaan booliiska baarka waxa la Casanova caruurta iyo dhalinyarada magaalada halkaas ayuu u furtay inuu ku baadho
anshaxumaduba halkaasay ka soo baxdaa baararka magaalada booliis ma ilaaliya Casanova muxuu booliisku u ilaaliyaa caaq Ismaaciil ma noo sheegi kartaa ninkan laanu dibad ma maalgashan xoolahaas xaaraanta ah dal islaano ayaan nahay oo ashahaadanaya markaasuu magafeena khamaaradu furtay caruurta baar calaacal halkaasuu furtay baar calaacal waana darki doontii fiidiyooga wax walbiba aanu maqal iyo muuqaal baan idin keenaa askartii hor joogtaad arki doontiin waa guudka ka soo horjeedka salaama baan caruurtii wadanka halkaasaa lagu aafeeyey oo lagu fidneeyey magafe agi balaqo cabdilaahi batadhaah cali caruur maxlal nacamle mala yacni waxaasoo dhan waa adi nacamlaynta mala yacniga maxlalka waxoo dhan waa adiga magacda inta u xun baa laguu soo xulay waxa kuu soo xulayna waa camalkaaga iyo waxa aad ku jirto iyo qurinka aad ku jirto iyo beenta aad sheegayso iyo gogoradda ay taabaraleel xaynkeeda aad raacdeed moodayso inaad dalka ku hanan mayside waa lagu dhiibiyo halkii qayr kaa maray waad garanaysaa meeshan dhan ee amniga ninka haysta ayaa baar ka dilaala waa booliskii dhanaa wadanka ninkii baa layidhi haystay magafe ahaa ayaa baar ka dilaalay aygi balaqo cabdilaahi batadhaah cali caruur maxlal haye nacamle mala yacni macmal waxaasoo dhan waa adiga mala yacni macmal maxay ahayday kulli nacamlaynta nac meel walba afka aad dhigaysineed wax alla waxaad og tahay jirin marka waa lagu bartay sankaa lagaa qabsaday asaagaa way ku dhaafeen ma maalgashin waxaan haddaa kurbefo ayaa leh ma annagaa leh xoolihii ummadda reer jabuuti shalay maahin waxay foosiyo valeri joogtay dhakhtarka faransiiska ee xoolaha jabuuti isku dawaysiin haddaa xaggee ka keenteen xoolaha intaa leega dhakhaatiirta siinaysiin xoolihii ummadda reer jabuuti maaha milyaardheernimada halkeed ka keentay taariikhda nin walba waa la yaqaanaa halkuu ka soo jeediyo halkuu ku sugnaa calanka hortii shalay bay ahayd markii booliiska lagu qaadayay laba kabooda kala cayna aad sidatay markaasaa dadka doonaysa inaad iskaga dhigto nin tegey adeer xoolahan ummadda reer jabuuti baa lama gafe laguguna dacafin maayo ee taa barale latoo baroclame kumbani kuleli dayacan dalkiiyo dadka u daran colay waa laga qaban dalka adigana ku cafin maysa ninka u horreeya la dhiibaya waa adi ku talagaltaa qurunkaagii meel walbuu yaallaa iyo foolxumadaadii dee haddii caaqaad isaga intaad dhaaftay dhabarka etaa baraleel martay ku cafin mayso etaa baraleel hortaajiraba halkuu maray waa la wada og yahay adiguna you will be the next ku talagaltaa shicibka reer jabuutina kaama hadhayaan wixii aad ka gashay waad ogtahay dalkiiyo dadka marka waxaan u sheegayaa ummadda reer jabuuti fadhiga aan ka kacno dalkeenna aan u kacno xoolaheenna aan dhacsanno waa idinka arkaya iyagoo dibadda wada geeya maalkii dalka ayuu ku leeyahay anugu ma rabno anagu dibad anumanaga waraaqaha dibadda rabna waa adiga meeraysan ee guuriya galab carro ugu jiray barefektiirka faransiiska ilaa gubba keenay ee lagaa diiday ufuuf lagu yidhi ee wax walba isku dayay magafe batadhaa ummadda waa lagaa qabantay haddii ammaanada la hayo hadduu adiga ku caashaqay caaquna waad iswada raacaysiinta isku number baad tihiin anaga nooma kala sokaysiin isma dhaantiya dhasheed baad tihiin xasharu bashar kastiba xoolihii dalka ayuu dad ku noqday maahood ku wada naaxdeen dadkii lahaana ay ka gaajoonayaan de waa la iska kiin qaban reer jabuuto fadhiyi nooma eke aan dalkeenna dhacsanno innagoo isku duuban oo midaysan heeriyadaan iska kor qaadno kuwani waxba maaha haddeed waa xunba kacday waxba yaana askarta laynagu cabsiin askartu waa carruurteennii innagayna raacayaan waa carruurteennii waa raggeennii waa walaalaheen innagay dhibtayna haysata iyagana tuka daran baa haysata waa kuwa gabood baadilka loogu haysto waa kuwa qaarkood sidii la doono laga yeelayo waa kuwa qaarkood mushaharooyinkoogii amisoonta la ismariyeyna hadli karayn waar ka kaca fadhiga innagoo isku duuban waa kuwa dhalinteennii wada shoomeerka ah ee gidaarada wada fadhida dadaan dhulka u dhalanna la doonaya in laynagu dulbeero markaa taasi nimaan dhulkan u dhalan ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa caaq Ismaaciil waad iswada raacaysiin waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti daliya dibad waxaan leeyahay fadhiga aan ka kacno waqti baa yimiday dalka loo hiiliyo dalka iyo dadkuba hiilu inooga baahan yahay aan dalkeenna u hiilino dhacsanno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.